bismillaahi raxmaan raxiim. kusoo dhawaada warka warbaahinta halbeega wararka qodobada aan idiin soo gudbinayno waxaa ka mid noqonaya faahfaahinno kala duwan oo kasoo baxaya qarax ka dhacay magaalada muqdisho, wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland oo lagu baaqay dowladda federaalk soomaaliya inay sii dayso haddii kale cawaaqib xumo ay ka dhalan karto, madaxweyne hore maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka walacsan nuuca doorasho ee soomaaliya ka dhacaysa haddii la gaaro 2021, waxgarad ka soo jeeda gobolka mudug oo eedeyn dusha kaga tuuray madaxda ku sareysa maamulka puntland iyo madaxweyne hore maamulkaasi, fatahaada webiga shabeelle oo saameyn ku yeeshay degmooyin hor leh oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe. qodobada ayaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal. taariikhdu waxay ku beegan tahay 28 bisha 10 Oktoobar 2019. u diyaargarooba saaxiibayaal faahfaahinta qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran channelkan subscribe calaamada kambalka furta muuqaalkana saaxiibayaal sii share gareeya. aynu ku bilownay faahfaahinaya waxay ka soo baxayaan qarax ka dhacay gudaha magaalada muqdisho. qaraxan oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxaa jugtiisa laga maqlay xaafada ka tirsan magaalada muqdisho, waxa uuna ka dhacay agaarka iskuuska taleexa magaalada muqdisho. goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in qaraxan uu ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso waxaa lagu qariyay qashin wadada dhinaceeda, islamarkaana uu saabay dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose ee nadaafada ka shaqeeya. qaraxan ayaa waxaa goobjoogayaal la hadlay warbaahinta ay sheegeen in la dhigay mid ka mid ah aagaarka bangiyada ku yaala magaalada muqdisho, waxaana halkaasi soo gaaray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya daqiiqada ka hor unjugta qarax halkaasoo ka sameeyeen baaritaano kala duwan. wadada qaraxu ka dhacay ayaa waxaa muddo ay ku jirta hakad, waxaana joogsaday dhammaan isu socodka gaadiidka ee dadka, waxaana ciidamadu ay sameynayeen baaritaano. halka uu qaraxu ka dhacaya waxa ay tahay meel bustajo ee ciidamada ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya oo aanan ka fogeyn goobta qaraxaasi uu ka dhacay, waxaana haatan xaaladu ay tahay mid degan. ma ahan markii ugu horeysay oo qarax miino uu ka dhaco gudaha magaalada muqdisho, waxaana maalmihii lasoo dhaafay amniga magaalada uu ahaa mid faraha kasii baxayay. maamulka jubbaland ayaa waxa uu ka soo saaray xirnaanshaha cabdirashiid jaran, waxayna sheegeen in cawaaqib xumo ay ka dhalan karto xiliga wasiirka dowladda federaalk soomaaliya inay qaadi doonto. dowlad goboleedka jubbaland ayaa mar kale waxay si koror uga hadleen xariga dowladda federaalk soomaaliya ay dhowr bilood ka hor magaalada muqdisho uu geystay wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid jaran. wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa waxa uu sheegay in cabdirashiid jaran uusan ahayn dambiile, islamarkaana madaxa dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay inay sii dayso. waxa uu ugu baaqay guddoonka golaha shacabka iyo kanaqalka sare inay kaalin ka qaataan sidii loo sii dayn lahaa wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland oo tan iyo markii la xiray hal jeer kasoo muuqday maxkamadda maamulka gobolka banaadir. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in haddii lasii dayn waayo wasiirka cawaaqib xumo ay ka dhalan karto, mas-uuliyadda cawaaqibxumadaas inay qaadayso madaxda ugu sareysa dowladda federaalk soomaaliya. si kastaba ha haatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa 31 bishii Agoosto ee sanadkan 2019 waxay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho kasoo xirtay wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid jaran, iyada oo lagu eedeeyay xadgudub ka dhanahay bini'aadanimada, gaar ahaan arrimaha ka dhacay gobolka Gedo sanadii 2015, gaar ahaan degmada Doolow gobolkaasi, halkaasoo 4 ruux oo maxaabiis ahaa lagu dhex dilay xabsi ay ku jireen. wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland cabdirashiid jaran ayaa waxaa ku jira xabsi maamusho dowladda federaalk soomaaliya. tan iyo markii lasoo xirina hal mar ayaa waxa uu kasoo muuqday maxkamadda maamulka gobolka banaadir. ilaa hadda ayaa waxaan jirin sababta ka dambeysa xariga wasiirkan iyo waxa lagu haysto, walow dadku qaar ama la sheegayaba in xasuuqii ka dhacay gobolka Gedo sanadii 2015 loo haysto. madaxda ugu sareysa maamulka jubbaland ayaa waxay soo taraya baaqyada ku aadan in la sii daayo wasiirkooda amniga jubbaland ee ku xiran gudaha magaalada muqdisho, waxayna sheegayaan in wasiirku uu xiran yahay si sharci darro ah lana baal maray dastuurka dalka u yaala. xildhibaanada labada gole ayay maamulka jubbaland ka dalbanayaan inay ka qayb qaataan sii deynta wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland. odayaal ka soo jeeda gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo ayaa waxa ay eedeyn u jeediyeen madaxda ugu sareysa maamulka puntland iyo cabdiraxmaan farole oo horey usoo noqday madaxweynaha maamulkaasi.
odayaashan oo kulan ku yeeshay gudaha magaalada Gaalkacyo ayaa waxay si kulul kaga hadleen arrimo la xiriira qaabka loo qaybsanayo awoodaha maamulka waxayna sheegeen maamulkaasi aysan lahayn beela gaar ah madaxweynaha maamulka ayay waxay ku eedeeyeen in maamulkii cid gaar ah siiyay magaalada Garowe ayay ka cabanayaan in xuquuqdoodii lagu duudsiyo waa kuwan odayaasha oo arintaasi ka hadlaya waxaanu ka hadlaynaa waxgarad ka soo jeeda gobolka Nugaal oo isugu jira siyaasiyiin iyo madax dhaqameed ama nabadoono oo shalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe iyagoo aad moodid inay magaalada Garowe si qabiilaysan uga riixanayaan shacabka kaleete ee reer Puntland ama dadka kaleete ee reer Puntland waxyaabaha cajaa'ibaadka ah oo aanu shalayta hadalladooda ka maqlayna waxaa ka mid ah ma jirto Garowe cid annagu aanan amrin oo ka hadli ka dhah ma jirto wax ixtiraam ah oo aanu baarlamaan iyo wasiir midna uga samaynayno magaalada annagaa leh saanu doonno si aan ahayn oo loo maamuli karaana ma jirto arrimahaas ka soo yeeray nabadoonnadii ummadda u dhaxeeyey aad iyo aad baanu uga xunnahay annagu waxaanu doonaynaa Puntland waa maamul la wada dhistay magaalada Garowena magaalo madaxda waa laga wada dhigtay magaalo madaxnimaduna aayad quraana ma aha haddii shacabka reer Puntland siyaabaha noocaasa marar badan lagu soo celceliyo iyadoo waxyaabo badan oo kale oo aanan doonayn hadda inaanu ka hadalna jiraan iyadoo ay jirto u kala eexasho magaalooyinka waaweyn ee reer Puntland hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo horumarinta iyo waxyaabo badan oo kaleeto aanan uga xumayn haatan haddii magaalada Garowe oo aanu ognahay inaysan jirin cid gaar u leh oo aanu ognahay kuwa hadda sheeganaya oo leh laguma hadli karo ciddii hadasho waa xiraynaa inaanay annaga naga xigin inaanu ugana soo horreynay ugana dambaynayno haddana la degannahay aad iyo aad baan uga xunnahay in waxgaradku saa u fakaro waxaanu leenahay Puntland uma baahna kala qaybin iyo kala sheegasho deegaanadeeda shacabka reer Puntland Garowe Gaalkacyo Boosaaso intuba waa ka dhaxeeyaan cid ka sheegan ka dhaana ma jidho waxaana ka codsanaynaa waxgaradkii shalayta hadallada ku hadlayay oo ugu horeeyo ninka yiri magaaladan xukumaa ay ku xigaan nabadoonnadii aanu qofka u garanaynay aanan sahada doonayn hebel iyo hebel inaanu niraahno inay ka baxshaan cudadaar iyo raali gelin arrintaas baanu doonaynaa magaaladana inaysan u habboonayn shacabka reer Puntland inaanay arrimaha noocaas raali ku noqon karinin magaalada waa la wada leeyahay ciddii sharciga ku xadgudubta ha noqoto madaxweyne ama ha noqoto baarlamaan ama ha noqoto shacab sharcigu waa qabanayaa qaab sharci ah baana loo marayaa laakiin ma aha odayaal qaab qabiilta isku aruursadaan inay sida iyagu garsoor ka yihiin Puntland siday dadka ka xigaan magaalo madaxda inay u hadlaan oo yiraahdaan waa xiraynaa oo waa soo qabanaynaa oo magaalada annagaa leh oo waxaan rabnaa xagga annagu nabadgelyada Garowe raalli baanu ka nahay nabadgelyadeedna waa nabadgelyada Garowena ciduna nagama xigto annagoo dhan baa degan oo leh oo ilaashana waxaanu ka codsanaynaa inay ka baxshaan cudadaar waxaanu aaminsanahay arrintaas shacabka reer Puntland dhammaantiis dhagihiisu inay maqlaan inaanay ku habboonayn ee ay ku ahayd gaf ka yimid dad aysan ku habboonayn madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guulad ayaa waxa uu eedayn dusha uga tuuray dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay nooca doorasho ee ka dhacay Soomaaliya marka la gaaro waqtigeeda maamulka Galmudug maruu ka hadlayna waxa uu sheegay in hadda xaaladda Galmudug ay tahay mid aad u walaacsan rajo wanaagsan aan la qabin in halkaasi maamul laga yeegleelo Cabdikariin Xuseen Guulad madaxweynaha maamulka Galmudug wali ku sugan magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda dalku ku jiro waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan 2021 waxa uu sheegay inaysan suurtagal ahayn in doorasho qof iyo cod ah Soomaaliya ka dhacdo ilaa wali ayuu sheegay in aan la garanaynin nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici karta marka waqtigeeda la gaaro dowladda federaalka Soomaaliya madaxda haatan joogta xafiisyada ayaa waxa uu ku eedeeyay ama uu sheegay inay damacsan yihiin qorshahay
inay waqti korrin samaystaan sida ayuu sheegay inaasan laga aqbali doonin maamulka galmudugna waxa uu sheegay wax walba ka dhasha cawaaqib xumo ahi in dowladda federaalk soomaaliya arrintaa ay qaadan doonto ilaa hadda ayaa waxaan jirin maamul galmudug loo dhan yahay oo halkaasi ifaalaheedu ka muuqanayo. dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay doonaysaa inay xoog ku muquuniso maamulka galmudug sidaana maamul halkaas oo eeglasho. maamulka ahlusunna wal jamaaca ayaa waxa uu yahay caqabada ugu weyn ee hortaagan dowladda federaalk soomaaliya. guud ahaanna warkii aad ka daawanayseen warbaahinta halbeega wararka intaasi ayaan kusoo koobaynay. nabadgelyo.